maanta lagu qabtay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn dibadbaxkii u ballaadhnaa oo lagu taageerayay hogaamiye ku-xigeenka badbaadinta iyo mideynta gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn iyo wafuud uu horkacayo muddooyinkan ugu maqnaa dalka dibadiisa howlo shaqo waxaana maanta si rasmi ah magaalada Buuhoodle loogu soo dhaweeyay hogaanka iyo wafdi uu hogaaminayo waxaana ka soo qayb galay munaasabaddan lagu soo dhaweynayo hogaanka badbaadinta iyo mideynta gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn Dr. Salabaan Ciise Axmed Xagle Toosiye isimo عقال علماء الدين وحجرد ورد النيرة يولي بكوه هو يوينكا هالكاس أو أي كسو تشدين تدويني يسكسو بحي مناسبة دني هالكودجيا يكون تاجريان معمول الجبلات كأساسي كون تاجريان هجانكا بعدين تيمدين تقبل الصول سنايق يعين يوفتدن أو هجامين يو sidoo kale wafdidan ayaa iyadoo haytii ugu ballaadhneed abid si rasmi ah u soo gaadha deegaanka Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn waxaana ugu horeyntii munaasabadaasi qodobo ka soo jeediyay hogaanka badbaadinta iyo mideynta gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn Dr. Salabaan Ciise Axmed Xagle Toosiye waxa uu ugu horeyntii ka warbixiyay socdaalkii dheeraa ee muddooyinkan ay ku joogeen qaybo ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحالا بني فرحساعي الشعب كيجا يوم غرح بكل شهي إسوا بحرين وصول بيان وحاسوانيا غقاشة يوغاشة دولة عين شركة مجلسة وقيد بشي dhammaan shacabkana waa salaamaya inta markaan ka gudbo waxaan marka ugu horeysa maxaad u celinayaa hay-adda NSF Holland oo noqotay hay-addii ugu horeysay muddadii 21 sannadood ee dalka Soomaaliya burbursanaa hay-addii ugu horeysay ee si official ugu soo dirta saraakiil sarsare si ay u ogaadaan nolosha iyo baahida shacabka gobolka Cayn waxaa hay-adaha caalamka loo sheegayay in deegaankaasi yahay deegaan aan la tegi karin oo nabadgelyadiisa aad u tahay waxaan u malaynayaa arrintaas madaxdii ka socotay hay-adda NSF Holland inay u geyn doonaan hay-adaha kale warbixinta iyo waxa ay ku arkeen gobolkan waxaanu kaloo soo dhaweynaynaa dhammaan hay-adaha kale ee caalamku in ay yimaadaan waxana u qabtaan dadka deegaanka ku dhaqan oo runtii baahi weyn u qaba in hay-adahaas yimaadaan intaa markaan ka gudbo waxa weeye maamulka SSC waa maamul shacabku dhistay waa maamul shacabka hadda taagan oo qodaxda taagan uu samaystay waa maamul ku salaysan nabad iyo horumar intii aanu idinka maqnaynna idinkaanu idiin maqnay waxaanu ku maqnayn inaanu caalamka u sheegno baahidiina inaanu dowladda Soomaaliyeed gaadhsiino baahidiina waana gaadhsiinay jawaabtii hay-adaha caalamka iyo dowladda Soomaaliyeedna waa sidana wala inoo imanayaan insha Allah waxaanu ku dadaalaynaa oo awood saaraynaa in ilmaheennu helo waxbarasho inaynu helo caafimaad inaynu helo biyo inaynu helo nabadgelyo intaasaanu ku dadaalaynaa kana shaqaynaynaa waana rajaynaynaa inaanu gaadhno maamul cusub oo laga dagaalamsay ayaynu nahay balse guushu xaggeennay taallaa waana guulaysanaynaa maamulkeennu wuxuu ku salaysan yahay midnimada ummadda Soomaaliyeed wuxuu ka soo horjeedaa kala qoqobka iyo kala gogoynta ummadda Soomaaliyeed saynu u taagannahayna waa taas qadiyad Soomaaliyeed baynu u taagannahay waxaynu ka qayb qaadanaynaa dhismaha iyo dhisidda dowlad Soomaaliyeed oo qabata danaha ummadda Soomaaliyeed dowladdaas way soo socotaa dhismaheeduna waa ka qayb galanaa haddii alla ka dhigo
وعلى بكرة حسين صدوينتينا وحان شغلهاي وكل حسنهاي صاحبك عمر ما شفتم مالك قهبون ودبعانت كشري ما أنت بوهم لا لا رأين ودبعانت كشري ما أنت ما شفتم وحان كحسنا الجزء كمان قالوا إنه تسجلوا ويسيا على الرقاص وأي بوهم وفوق كان شركة ودبعانت اللي يسوونه وإسرائيلنا وحيا أنه ودنيه وحقالها أنا بكتاب واركس أنا دعم كلمة وحين يسكوب معي مدينة وحين يسكوب معي هرو مركينا إلينا كشغينا إذن هو شغينا إذن هرو مركينا كشغينا سامنتكو هدينا لنوه كشغينا هدينا مسكولنا بسن هدينا لنوه شارع عدو المهنة بسن هدينا لنوه اسبتالنا كشغينا إذن هو مغن وعنسينا متلتو وحلو داعية إلينا لنوه iskaashayno inaynu inagu dadka Soomaaliyeed iyo bulshooyinka kale Soomaaliyeed la tartano inaynu ilmaheena jaamacad ku samayno oo markuu halkan kaga baxo dugsiga sare uu jaamacaddana halkan ka galo inaga inoo taala hawshaas way gaaraynaa haddii alla ka dhigo waxa weeye wixii anagu aanu qaban karno waan qabanaynaa waana dadaalaynaa لكن في شيء يدك هذا الكروائيات كعبان أو حقرصتان هو أنه مجال أبوي وحي كتر على حدود وحي نحمل مع الدولة مدرسة الإيتوبيا سويته ما قسنا وحي نقول باهية لنا عشيسية إيتوبيا لا يرمسنا ومجال اللي نقاله محاي مو بسويني محاي مو بسويني والدولة وين إثيوبيا فإيو ينبغن بالغير يعددين عكرة والبسو أمني جاينا كسب مياه هرمر كينا هرمر وين باينو بسو كوريا وكل وحان يدكو بعرشية إلا إنه بسنا بنعاس ومقالنا ندير على الصومالي سوى غير العادي قال له بسي ميزو أمي لأينا نكبسنا ومقالنا إنك أسكرم ما يسكر عليك يا مستحذي يرأيه دوقاي يا وينموها ينك أي إيتوبيا وحوغ يسمى إيتوبيا وينك عنه أي إيتوبيا وحوغ يسمى وضعها هلا بسر واحدة رمضة إيرا حاول لهاي دولة إيتوبيا حدية عينو حاجة بسر سكولي كيني لها شابحلها كيني لها وفتالها كيني لها وحضرنا كيني لها مركا ودولد وين مكتب سنة عليه حاول بسبيه حاول انت اصلا وايد تسوى كلمي انا اقول له ظهر ليس بسبيه وزالة كبير وحام هذا تسوى كوني يخرع ما يتعييها وحام يسكوه ما يقول يمن نبا الشرمنا والله قالوا بين البشر كلا قديسا وحنا وين دونتان أهبل يسوعنا والسلام عليكم ورحمة الله. hoggaanka ayaa ku dheeraaday faalla dheer oo ka bixiyay socdaalkiisii ku aadanaa muddooyinkii ugu dambeysay uu ku marayay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya halkaas oo kula qaadanaya dhigiisii isla haystay dalka Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaare Cabdiweli Maxamed Gaas waxaana muddooyinkii ugu dambeysay deegaanka Buuhoodle si rasmi ah ugu soo qulqulayay wufuud kala gedisan oo ka socota deegaamada Sool Sanaag iyo Cayn وفوداس oo ka shaqeynaysa arrimaha iyo danaha maamul goboleedka SSC isla markaasna lagu wado dhawaan in shirweyne ballaaran ay isugu yimaadaan isimada cuqaasha waxgaradka iyo waliba aqoon-yahamiinta deegaamada Sool Sanaag iyo Cayn ay ka soo qayb gali doonaan inuu ka dhici doono deegaamadaasi sidoo kale waxa ayana halkaasi ka hadlay xubnihii ku weheliyay wafti waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay wasiirka Boosta iyo Isgaarsiinta maamul goboleedka SSC dhammaan shacabweynaha gobolka Cayn oo ka kooban odayaal odayaal arday haween saxaafad
دميتين وحال الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعد العدو أميرة إنا ولدكما سوقيت الله كورن كم بغاري الشمس وبحاري ومدى انتهى الليل بدينها مقال يدوها هنا فالعدو الدويسة لبنا يعني مرين كده موسى حسين على مدى عن دكم مغنين مدى عن مغنين وحان مغنين هوها يتسي خاصة أرمى لحظة حق الانترناشنال ده وروح بدل كسوق بنا sidoo kale waxaan ku ammaanaynaa shacabweynaha gobolka Cayn guushii waxa halka aan shirkeeda ku galeynaa Soomaaliya ha noolaato waxaan leenahay Soomaaliya ha noolaato hay'ad kalato ilaahay waxaan ka baryaynaa shooska iyo bisaadka iyo qofka xulinahay inuu soo hadeeyo waxaan leenahay gobol baa taalbuuhooda Soomaaliyeed gobol baa taalbuuhooda Soomaali oo dhan hay'adaha iyo dalalka geesaha laga xiga ee wax kale laga filaya ee moodaya inay shar tahay waxa weeye nabad baanu ku soo dhaweynaynaa geedna waanu haynaa aanu ku qaabilo gurina waa haynaa waxaan leenahay lagama aha wax khiyaaliya oo tamreeriya Soomaaliya aan doonaynaa madaxweynaha annaga oo isaga afkiisa ku hadlayna waxaan leenahay Soomaaliya aan doonaynaa calankiina wataa calankana warcalanka jamhuuriyadda munaasabadan lagu soo dhaweynayay hoggaanka badbaadinta iyo mideynta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn wufuudan oo horkacayo ayaa iyadu ahayd mid si heer qaran lagu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn waxaana muddooyinkii ugu dambeysay si rasmi ah u soo gaarayay deegaamada Sool Sanaag iyo Cayn wufuud kala gedisan oo ka imaanaysa dalka dibadiisa isla markaasna u socota arrimaha iyo mideynta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn sidoo kale waxa muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa deegaamada Sool Sanaag iyo Cayn wufuud ka tirsan gudida qabanqaabada ee shirka Khaatuma 2 oo lagu wada dhawaan inuu ka dhaco qayb ka mid ah deegaamada Sool Sanaag iyo Cayn sidoo kale waftidan ayaa iyadu ahayd wafti si heer qaran lagu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn waxaana waftidan ku weheliyay madaxweynaha wasiirka warfaafinta boost iyo isgaarsiinta ee maamul goboleedka SSC sidoo kale waxa iyuna halku dhigyo ka soo jeediyay munaasabadii lagu soo dhaweynayay hoggaanka badbaadinta iyo mideynta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn dad iyagu ka tirsan waftiga ama bulshada deegaamada Sool Sanaag iyo Cayn waxayna halkaasi ka soo jeediyeen halku dhigyo ay ku taageerayaan madaxweynaha iyo waliba maamul goboleedka SSC munaasabadan ayaa iyadu ku soo gabagabowday jawi farxad iyo raynrayn leh iyadoo ay ka muuqanayeen bulshada reer Buuhoodle wajigooda farxad iyo raynrayn ku aadan dawladda maamul goboleedka SSC waxaana ugu horeyntii halkaasi ay wadooyin ay ku mareen wadooyinka waaweyn dhex mara magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn waxayna wakici timeen qaybaha kala gedisan ee wadooyinka dhex mara magaalada Buuhoodle نجيب عبد الولي عبد الحيس تلفزيون عالمي الصومالي 7 مقالة Buuhoodle